shirka golaha wasiirada aan caadiga ahayn isla markaana lagu qabanaya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa gurdhow soo gabagaboobay iyadoona shirkan toddobaadkan looga hadlay dardargelinta doorashada daaday iyo sidii loo sii wadi lahaa shirka kadib waxaa warbaahinta ama warfidyaanka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya asiguna ka warbixiyay shirka waxyaabaha looga hadlay ugu muhiimsaneed arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka oo xilligan kala guurka ah loo baahan yahay in si wada jir ah looga shaqeeyo waxa uu carabka ku dhuftay in sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada loo dardargelinayo isla markaana ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo shirka ka sheegay in la casuumay golaha wada tashiga qaranka sida ugu dhaqsiyaha badan ee Muqdisho u imaadayna isla markaana sidii loo ambaqaadi lahaa dardargelinta arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxa soo dhamaaday oo aan hadda ka soo baxnay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee galab kasto khamiiska ka qabsoon jirta xafiiska prime ministerka shirku maanta runtii wuxuu lahaa muhiimad aad u weyn waxaana lagaga hadlay arrimo taabanaya nolosha iyo xaaladda dalka shirka oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble xubnaha golaha wasiiraduna ay si buuxda uga soo wada qayb galeen waxa lagaga wada hadlay dardargelinta doorashada way ogtihiin doorashadii way jiitantay muddo soo socotay sanatarkii ugu horeeyay waxa la doortay July 29keedii ilaa haddana doorashada way socotaa runtii arrintaas goluhu maanta aad isla soo qaaday ra'iisul wasaaruhuna ku tirtirsiiyay in la dedejiyo doorashada xaaladdu waxa weeye doorashadu jiitankeedu wuxuu keenay arrimo badan wuxuu saameeyay dhaqaalihii wuxuu saameeyay noloshii dadka wuxuu saameeyay maalgashigii wuxuu saameeyay deeqii caalamiga ah wuxuu saameeyay shaqadii maalinlaha ahayd ee dawladda oo dadkii qof walba wuxuu leeyahay doorashanaadaya iyo mashquul baanahay iyo hawl baa lagu jiraa marka si arrimahaas oo dhan looga baxo golaha wasiiradu galabta wuxuu gudoomiyay in la dardargeliyo doorashada qaranka sida ugu fiican ay u dhacdo waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu uga warbixiyay xubnaha golaha wasiirada madaxsha shirkeedii uu qabsoomi doono 27 bisha waa loo diray tigidadii iyo diyaaradihii iyo hawsha dhan waa la isku dibiriday 27 bisha halkan isugu imanayaan madaxdii madasha qaranku si loo dardargeliyo doorashada isla markaana loo sameeyo waqtiga ay ku eg tahay iyo deadline-ka si shacabka Soomaaliyeed ay u ogaadaan waqtiga doorashada ay dhamaan doonto arrimaha doorashada oo inagu raftay maanta goluhu aad buu ku dheeraaday qodobkaas ku ahaa qodobka labaad ee maanta uu ka hadlay golaha wasiirada laga hadlay waxay ahayd oo aad u muhiim ahayd amniga waa lafdhabarta dalka amnigu wuxuu saameynayaa nolosheenna oo dhan amnigu waxa weeye lafdhabarta qarannimada sidaa daraadeed ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu waxay isla garteen in la dardargeliyo amniga maadaama lagu jiro xilli doorasho oo aad u adag xilliga doorashada iyadoo mar walba waajib tahay in amniga kor loo qaado haddana waxaa laba gooraaleba la sii adkeynayaa xilliga lagu jiro doorashada si loo sugo amniga wuxuu faray ra'iisul wasaaruhu hay'adaha amniga dhammaantood gaar ahaan wasaaradda difaaca wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga hay'adaha amniga in ay shaqadooda laban laabaan si ay inoogu dhacdo doorasho ammaana oo codeeyaha iyo musharaxiinta iyo dadweynuhuba ay u galaan doorasho nabad qaba doorasho fiican xaaladda dalkana gacan bira loogu qabto arrinta amniga runtii iyadana aad baa loogu dheeraaday waa qodobkii labaad ee laga hadlay waxa kale oo maanta la isla soo qaaday shirka golaha wasiirada aan caadiga ahayn oo gordhow soo gabagaboobay ayaa ka duwanaa shirarkii hore ee golaha wasiirada iyadoona shirkan looga hadlayay si abaqaadinta iyo dardargelinta doorashada daahday waxaana guud ahaanba shirka markuu soo ilaaday warfidyaanka si rasmi ah ula hadlay wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona fariinta shirka markaasi halkaasi laga sii deynayay sida loola wadaago bulshada qaybadeeda kala duwan Cabdullaahi Faarax Nuur Yiriiso wararka telefishinka Somali Cable TV madaxtooyada Soomaaliya